jaalidaha qurbo-joogta Soomaaliyeed ayaa maanta ugu deeqay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee jooga gobolka Gado gaar ahaan degmada Balad Xaawe. Deeq ay ka kooban tahay noocyadeeda kala duwan ee raashinka sida burka, bariiska, digirta iyo baastada ee caanaha iyo xoolaha. waxay jaaliyada balan qaaday inay garab taagnaan doonaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee ku sugan xuduudaha si looga adkaado cadowga gudaha iyo kan dibadda. jaaliyadan ayaa bogaadisay guulaha ay ka gaareen ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed deegaanada ay gacanta ku hayaan kooxda nabaddiidka ee Al-Shabaab. waxaa arrinkaasi ugu mahadceliyay taliyaha guutada 10aad qaybta 43aad ee ciidanka xoogga dalka ee gobolka Gado, Korneel Maxamed Cabdo Cali Sanka. oo wareynta waxaa goobtaasi ka hadlay oo mahadceliyay jaaliyada maamulka degmada Balad Xaawe, gudoomiyaha degmada Balad Xaawe Axmed Bare Sheekh Cabdullaahi, asagoona ku tilmaamay inay tahay mid ku dayasho mudan jaalidaha ka soo jeeda gobolka Gado inay garab istaagaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. inaan maantayto aan u gudbinayno deeq raashin ah lacag ay noo soo direen jaaliyada sade ee ku nool qurbaha, taas oo aan maantayto ugu soo gadnay ciidanka qalabka sida ee Soomaaliyeed raashin, kuwaas oo had iyo jeer naftooda iyo dhiigoodaba u huro difaaca iyo ilaalinta dalka iyo dadka. sidaa daraadeed jaaliyadeennana way ku mahadsan yihiin inay maantayto noogu deeqaan raashin lacag $1,000 ah oo ay noo soo direen. innaguna sidoo kale waxaan ugu gadnay dhallinyaradeenii noo halgamaysay iyo ciidamadii qalabka sida iyo taliyaheenii ciidanka qalabka sida Korneel Sanka asagina oo nala joogo iyo saraakiishiisi kale iyo ciidamadii noocyadooda kala duwan oo nala joogo ayaan raashinka u geynay, waana ku wareejinaynaa. waana nasri ilaahay inay ayagoo bad qaba iyo anagoo bad qabo aan isu imaano, waana wax ilaahay loogu mahadnaqo. waxaana ilaahay ka baryaynaa inay nabadda noo sii waarto iyo baraaraha iyo horsocodka iyo horumarka. waxaana rajaynaynaa inaan gaari doono guul tii ugu dambeysay ah Jubbaland oo xaq iyo xalaal loo dhisay. noo ah in gudoomiyaha degmada Balad Xaawe uu soo gaarsiiyay deeq lacageed oo dhan $1,000 oo loo gaday raashinka ee halkan ka muuqdo. deeqdaas oo ay soo dhiibeen jaaliyada qurbaha ku dhaqan Marreexaan ama Sade. waa u mahadcelinaynaa, ilaahay ajir ha ka siiyo. waan ka gudoomay gudoomiyaha $1,000 oo lagu soo gaday raashinkaas oo ciidanka xoogga oo ku sugan Balad Xaawo uu si buuxda ula wareegay. waan la wareegnay raashinkii. waa u mahadcelinayaa gaar ahaan gudoomiyaha jaaliyadana u mahadcelinayaa. waxaan isleeyahay ma aha markii ugu horeysay oo ay garab istaagaan ciidankooda. mar walba la kaga baahan yahay garabkiinuna wuxuu xasuusinayaa doorka ay ku leeyihiin dalka iyo inaad tihiin dadka raba ciidankooda inuu taageero, maadaama ciidankan uu ku jiro dagaal. ciidan dagaal ku jirana wuxuu u baahan mar walba shacabkiisu inuu garab taagan yahay. wax walba oo taageero ama wax walba oo sibooda inuu la garab taagan yahay hiil iyo hoobo. waana wax aan ad ku tihiin oo wax maanta cusub ma aha. haddii aan joogno Balad Xaawo iyo haddii aan joogno degmooyinkan gobolka Gadana waxyaabahay caanka ku yihiin mar walba waa sidaas waaye. adinka ogaashihiina iyo ka warqabkiina iyo deeqda aad bixinaysaanna ma aha markii noogu horeysay. waa idin mahadcelinayaa. insha Allah bidillaahi kariim guuleysta ayaan idin leeyahay. Cabdinuur Shabley Xasan Cabdinuur Shakir, warbaahinta qaranka degmada Balad Xaawe ee gobolka Gado.